intaa ka bacdi waxaan baraarujinayaa oo la ii sheegay oo igu cusub gabar hobalad ah oo heesta oo fanaanad ah iyo kuwa kaloo la shaqaynahay in waddanka lagu soo dhaweeyo la keeno in caawa loo tumahayo la dhigahayo in $20 lacag gaarta lagu gelahayo fasaadka isaga ah ya akhlaaq xumadaas iyo intaas oo lacagaho laga kasbahayo dariiq aan sax ahayn waxaan leenahay sida ay culimo badan uga hadleen ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli kama aha waa camal ilaahay uusan raalli ka ahayn waa camal shaytaan waa camal ummadaha acmaasha lagu halaaga ka mid ah oo nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ummaddan qaar ka mida dhulkaa lala goyn doonaa qaarna daanyeeriya doofaaraa laga dhigaya markay dhacaysana waa markii idaa daharat ilqaynaat gabdhaha heesa oo hobollada ah fanaaniinta ah markii ay bannaanka oola soo baxaan heesaha iyo fankooda ay bannaanka oola soo baxaan ummaddaani waxay khatar u tahay dhulka in lala gooyo in doofaariya daanyeerha laga dhigo in ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaab cirka oga soo daadiyo ayay khatar u tahay waxaan leenahay oon ka digaynaa war dalkan iyo dadkaani dhibaato intay soo mareen baa ugu filan waxa lagu ciqaabayo musiibadu u haysataana ilaahay ma dulmin nafteenna annagaa dulminay war yaa cuquubo naloo soo jiidi oo yaa nala halaagin oo yaa nala baabi'i war fanka iyo suugaantu gabadhu inay isqaawiso ma ahan cawradoo la fayta ma ahan akhlaaq xumo oo bulshada lagu soo kordhiyo ma ahan xishoodkii oo laga taga ma ahan gaaladii oo lagu dayda ma ahan war waxaani waa fasaad iyo akhlaaq xumo awal baa guryihii laga joogi waaye kuwii yaalay oo dishka ahaa kuwii moobeellada ku jiray kuwii meel walba la soo dhigahayay haddiiba la keeno ratigii oo socdo oo raran haddii la keeno deegaankii lagu soo kordhiyo oo waxa weeyaan la yidhaahdo lacag baa lagu gelaya oo lacagteennii aan iibsanayna naar aan ku iibsanayno war xaggee u soconnaa war yaa noo damaano qaadaya saacaddaas aan ku jirno inaan cuquubo ilaahay nagu dhacahayn inaanan baaba'ahayn inaanan damaar aanna gelahayn waxaan leenahay gabadhaa la gelbinahayo iyo kuwa gelbinahayow ilaahay ka baqa haddaad mas-uuliyiin tihiin ummaddaan ciqaab uma dhimana ilaahay oga baqa haddaad qaraabo la tihiin ilaahay oga baqa haddaad tihiin dad xishood iyo akhlaaq danaynahaya oo wax un ay ku dambeeyaan fasaadkaa iyo munkarkaa joojiya lacagta la qaadanayaa waa xaaraam midka bixinayaa dariiq xaaraamuu ku bixinayaa aakhirana waa la weydiinayaa isagoo ilaahay hor taagan oo qaawan oo buuriye qab ah ayaa la weydiinayaa maalkiisa meesha uu ka soo shaqeeyey iyo meesha uu ku bixiyey ayaa la weydiinaya war su'aashaa jawaab u heli maysaan kuwa bixinahaya iyo kuwa qaadanayo ilaahay ka baqa waxaan leenahay maalin jumca weeye qoraxdu markay sii dhacayso ducada waa la aqbalaa saacaddii ijaabada iyo aqbalka ayaa ku sugan haddaynan fasaadka deegaanka aynan ka daynin annagu hubka aan haysanno aan awoodno waa adducaa ilaahay inaan barino subxaana wa tacaala oo aan idin habaarno musiibadiinna ilaahay inuu idinku celiyo waayo boqolaal iyo kumanaan khalqi ah ayaa la fasaadinayaa waxaan leenahay gabadhaas iyo kuwa la socda haddaynan ka joogin ilaahay calaamadaha idinka soo saaro waa maalin jumco ah calaamad ummaddu ku cibro qaadata ilaahay ka soo saaro war deegaanka iyo dalka ha laga daayo fasaadka intaa la eg war waxa ilaahay nagu ciqaabayaa taas weeye war ka jooga war gabar qaawan oo cawradeedii bannaanka soo dhigtay oo ereyga ay qaadaysa iyo codkeedu uu malcuun yahay oo nebiyullaahi moxamed noo sheegay sala allahu calayhi wasalam war maxaad ku dambaynaysaa war dadka heesaha dhegaysanaya oo habeen iyo maalin durbaanada u tunaya aflaamta war waxaa laga yaabaa ilaahay khaatumadiinna inuu ka dhigo oo markay geeridu idinku soo xaadirto oo qaraabo iyo rixm idinka dareeraan in ilaahay idin laqinihu aad awoodi weydaan inaad ku dhawaaqdaan laa ilaaha ila allah ee beddelkeeda carabkiinnu ku dureersado
idinkoo heesaya nafta ilaahay idinka qabto wayna badan tahay macruufna weeye dadka heesa haddaynan ka toobad keenin khaatumo xun bay ku dambeeyaan meeshii tawxiidka ay qabsan lahaayeen ayay waxay ku dambeeyaan ayagoo durbaankii iyo heestii ku heesahaya ayaa nafta looga qabta waa calaamad xun oo khatara arrintaa digniin weeyaan aan u dirayno dadka shacabka ah ha dhegaysanina lacagna ha ku bixinina hana daawanina xoolihiina naar ha ku iibsanina allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم